أصحابي وإذن سلامي كسر وهذا رونشاك ميديا نتورك. أصحابي وحان ربا إنان إذن شاقو الصومالي waxa ku soo socdo mawjado siyaasadeed oo aad u culus kuwaas oo ugu imaanayo isbedelka dhalinyarada Soomaaliya ee ku soo socdo ama isbedel ay dhalinyaradu horseed u yihiin ayaa soo socdo oo la yiraahdo Gen Y. Gen Y waa millennium waa generationkii dhashay 1985 iyo wixii ka hooseeyay 90kii dadka dhashay waay. marka dadka noocaas waxay qorsheynayaan inay Soomaaliya ka dhigaan dibadbaxyo aad u waaweyn oo runtii gilgila oo lagu doonayo in xukunka looga tuuro siyaasiyiintii hore ee dalkan soo martay ee dalkan iska haysata weligeed si Soomaaliya ay u yeelato hanaan cusub oo ka duwan cidda hadda maamusho Soomaaliya ama siyaasiyiinta hadda Soomaaliya maamusho. maxaa yeelay Soomaaliya waxaa soo maamulaya in muddo dad siyaasiyiin qaarkood 60kii ilaa 60kii baarlamaanka ay ku jireen wali ay hortaageen wadda Soomaaliyeed meelna ay isu socon. marka waa cycle wareegayo oo ayaga kaliya ayaa dawladnimadii ay ku soo koobmatay. marka taasi waxay keentay in isbedel xagga siyaasadda Soomaaliya ay mataqaanaa ay ka dhici weyso. macnaha siyaasaddii inay markasta taagnaato halkeedii oo wax isbedel ay ma waayaan. taas marka dadka Soomaaliya waxay dhaxal siisay inay siyaasaddii ka niyad jabaan, dawladnimadii nacaan, su'aalo badan iska weydiiyaan. adduunyada marka hadda maanta madaxda Afrika qaarkood kulligood ma ahan waxay qorsheynayaan ama ay diyaarinayaan ajendayaal ayaga u gaar ah. ajendayaashaas marka waxaa ka hoos dhalanayo dibadbaxyo iyo rabshado ayaga ay marka dambe ka shalay doonaan oo ay sabab u noqon doonaan in dalalka ay madaxda ka yihiin ay isbedelaan. Soomaaliyana qayb ay ka tahay. waxaa mar dhow imaan doona dhalinyarada Gen Y la dhaho ee dadka dhashay 85tii wixii ka dambeeyay kuwaasa xukunka la wareegi doona dalka iyagoo la imaan doono ama sameey doono dibadbaxyo nabdoon oo talada dalka lagu la wareego gees ilaa gees. dadka siyaasiyiinta ay hadda ummadda hor fadhiyo muddana soo horjoogay xukunkooda waa u dhamaan doonaa waa una ka bixi doonaa meesha. marka taas waxay keeni doontaa inaysan suuro gelin oo macnaha aysan noqon wax shaqeynayo oo ay caqabad ku noqoto dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliya. dadka siyaasiyiintaas ee muddo hor taagnaa ummadaan in la hor wareejiyo ayaa soo socoto oo ay saaxadda ka baxaan sidii daad ama qulqul biyo oo kale ay u baxaan ayaa soo socoto. Ethiopia, Soomaaliya, Kenya, Djibouti, Eritrea intaas baa ku soo socdaan mudaharaadyada. waana wax dhalinyarada ay horseed u yihiin oo isbedel lagu doonayo oo qorsheysan oo dhici doono oo aan shaki ku jirin. Soomaaliyana hadda dadka siyaasiyiinta waa ay la yaaban yihiin say ku dhici kartaa arrintan. dadka qaarna isweydiinaya laga yaabaa dhalinyarada Soomaaliya intee aadeen, maxay isu bedeli laayihiin, maxay mudaharaadi laayihiin, maxay isbedel u keeni laayihiin, maxay talada dalkooda ayaga u la wareegi laayihiin. dhalinyarada wax barataan ka hadlaya ee dalka ku nool iyo dibadda ku nool ma ka hadlayo kuwa nabadiidka ee dawladnimada ka soo horjeedo ee nabadda ka soo horjeedo ee ummadda qarxinayo ee dhibaatada ka shaqeynayo ma ka hadlayo. kuwaas waxaan ka hadlaa kuwa wax baratay ee dal iyo dibad joogo ee raba inay systemka dawliga qayb ka noqdaan laakiin cadaalad darro iyo musuq iyo eex iyo qabyaalad ay ka kala tuurtay oo dad siyaasiyiin ay horboodaan markastana taladooda haayaan. marka intaas raba aan idin sheego asxaabey aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bye bye.